dardaarankiisii weynaa waa mid ay maanta qasabta in la hirgeliyo. Abwaanku intii uu noolaa waxa uu ka hadlay in maalinta uu dhinto aysan waxba u taraynin maamuusid badan iyo in shirar lagu dulqabto iyo inay qalad cad tahay in qabrigiisa la ag joogo iyadoo loo maamuusayo. erayada ku jiray dardaarankiisa waxaa ka mid ah in haddii qabriga loo sii wado ay qalad tahay in ilmo lala daba joogo ilaa laga duugayo oo yaan la ii ilmaynin ayuu leeyahay oo nafteeda yaan looga sii daran. sidoo kale waxa uu sheegay inuusan oggolayn in maamuus weyn loo sameeyo oo dabaaldegyo waaweyn la qabto maalin gaara loo asteeyo si loo xuso ama taalooyin laga duldhiso qabrigiisa. bal markan aan idinla wadaago erayada qalbiga taabanaya ee laga qoray Abwaan Hadraawi afkiisana uu ka sheegay intii uu noolaa ay la xiriiray dardaarankiisa. cishaday dalagan tahay talandool u tahay iil godka loogu daadego naftu way dayacan tahay durucdani nin noolow annatayda doqonta ah waa dardaarankeedii. qabrigaygu deyr ma leh derbi iyo astaan ma leh dugsashiya agjoog ma leh dumbuq iyo salaan ma leh demdem iyo aloos ma leh iyo darama luuq dheer debla rida ka waaweyn ilmo layla dabagalo naxashkayga lagu dado duxi iima saarnee yaan la iiga sii darin yaan la ii dabaaldegin. kol hadday dacwo dhan tahay dembigeeda keedka ah dibnaheedu qirayaan lafahayga duugga ah yaan dushooda lagu shirin bilad dahaba lagu tulin iyo taalo damac badan. qofka ii duceeyow rabbigay ku darajee qofka iga ducaystow dummaddaada weeyaan. erayadan waa dardaarankii uu Abwaan Hadraawi ku cabbiray inaan loo dabaaldegin bilado lagu dul xardhin qabrigiisa sidoo kalena aan taalo loo dhisin. qof walba oo Soomaaliya ayaa si dhab u fahmi kara dulucda ay erayadan xambaarsan yihiin.